ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 12 Abriil 1960 kaas oo lagu aasaasay ciidan ka kooban 8 hurmood oo lagu magacaabi jiray Cali Boobaye. ciidankaasi ayaa tir ahaan ahaa 2,000 oo askari oo laga kala qoray 6 gobol oo ka tirsanaa goboladii koonfureed ee gumaystaha Talyaaniga oo gumaysan jiray. degmo kasta waxaa laga soo xulay 50 askari oo kuruudka ciidanka ku qaatay xerada Botico oo markii dambe loo bixiyay dugsiga tababarka ciidamada ee dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 1969 ilaa 1990 oo ahaa xilligii dawladii militariga ay gacanta ku haysay hoggaanka talada dalka. xilligaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa xilligii ugu dhismaha iyo tababarka badnaa, waxaana la ballaariyay dhismihii ciidanka, waxaana la dhisay ciidanka lugta iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada difaaca cirka oo markii hore ahaa horimo gaar ah. sidoo kalena waxaa la ballaariyay qaybihii gobolada dalka kuwa oo ay xarumo u ahaayeen magaalooyinkii Muqdisho, Dhuusamareeb, Hargeysa, Burco, Baydhabo iyo magaalada Kismaayo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xilligaasi uu xarumo ku yeeshay xilligii dawladii militariga waxa uu gaaray xagga dhismaha iyo farsamada heer aad u sareeya, waxa uuna ka soo qayb galay dagaalo iyo howlgallo nabad ilaalin iyo sidoo kale nabadda loogu soo celinayo dalalka ka tirsan qaaradda Afrika, taas oo uu ku kasbaday in loogu yeero ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed libaaxyadii Afrika. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed intaasi wixii ka dambeeyay waxa uu gaaray in uu gaamuro oo uu cududii lagu tilmaamay xilligaasi in uu ahaa kuwa ugu awoodda badan bariga Afrika, balse waxa uu qayb ka ahaa burburkii dalka soo gaaray 1991. waxaana hadda lagu jiraa xilligii ugu fiicnaa oo ay ka soo kabanayaan, waxaana socda dadaalo dib loogu dhisayo awoodda iyo xoogga ciidamada qalabka sida, iyadoo ay socdaan isku dhafka ciidanka iyo weliba qaramaynta intaba. isku dhafka ciidanka xoogga dalka ayaa xoojinaya guulihii laga gaaray isku dhafka ciidamada booliiska iyo nabad sugidda. arrintaas oo muujinaysa in Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu ku guuleystay qorshihii ahaa qaramaynta ciidamada Ahlusunnah iyo ciidamadii deegaanka si ay wadajir ugu xoreeyaan deegaanada Galmudug ay argagixisadu uga sugan yihiin. haddaba dadaalada socda waxaa ka mid ah in dhowaan dawladda Uganda oo ka mid ah dalalka taageera dhanka tababarka ciidamada u fidiyeen ciidanka qalabka sida. sidaas awgeed ayaana waxaa xerada tababarka ee Kamaba lagu qabtay munaasabad ballaaran oo tababar loogu soo xirayay Layli Saraakiil oo muddo hal sano iyo bar ah tababar uga socday dalka Uganda. waxaa munaasabadaasi tababarkaasi loogu soo xirayay Layli Saraakiisha goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Uganda, taliyaha ciidamada dalka Uganda, abaanduulaha ciidanka lugta ee dawladda Soomaaliya, isuduwaha tababarada iyo isdhexgalka ee xafiiska madaxweynaha, siihayaha safiirka Soomaaliya ee dalka Uganda, diblomaasiyiin, gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta halka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa markii uu soo gaaray goobta salaan sharaf ka qaatay ciidanka iyo Layli Saraakiisha tababarka loo soo xiray ee isugu jiray Soomaali iyo Ugandes, isla markaana soo bandhigay dhoolatus military. sidoo kale Layli Saraakiisha ee tababar u soo idlaaday ayaa goobtaasi lagu dhaariyay. sidoo kalena madaxweyne Yoweri ayaa abaanduulaha guddoonsiiyay saraakiisha kaalmaha horey ka galay muddadii uu tababarkaasi socday, iyadoona kuwa ka socda dawladda Soomaaliya uu qayb ka ahaa dadkii abaalmarintaasi la guddoonsiiyay. inta ay socotay munaasabadaasi ayaa waxaa khudbad ka jeediyay goobta madaxweyne Yoweri Museveni, isagoona saraakiisha ku booriyay in ay mar walba dantooda ka hormariyaan danta guud ee dalka. saraakiisha tababarka loo soo xiray ayaa laga soo dhoofiyay garoonka caalamiga ah ee Entebbe, waxaana horey u soo raacay saraakiisha abaanduulaha ciidanka lugta Jenaraal Cabdirashiid Cabdullaahi Shire iyo isuduwaha tababarka iyo isdhexgalka ee xafiiska madaxweynaha Bashiir Axmed Maxamed. waxaana garoonka ka soo sagootiyay siihayaha safiirka Soomaaliya iyo Uganda Cali Maxamed Maxamuud. dhinaca kale waxaa jira tababar loogu soo xiray xerada Turkisom ee magaalada Muqdisho saraakiil iyo Layli Saraakiil oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoona uu soo xiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo 2 sano ah lagu diyaarinayay dugsiga tababarka ee Turkisom.
intaasi kuma eka dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee waxaa kaloo jira ciidamad hadda uu tababar ku qaadanaya dalka dibaddiisa oo hadda ugu soo idlaaday magaalada Isbaarte ee dalka Turkiga kuwaas oo qayb ka noqonaya xuduudda xoogga leh ee ciidamada qalab waa dufcaddii saddexaad oo xilligani uu tababar uga soconayo dalka Turkiga waana qayb ka mid ah ciidanka danab oo loogu talagalay in ay burburiyaan saldhigyada maleeshiyaadka shabaabku ay ku leeyihiin gobolada dalka iyadoona birisamaadkii loo aqoon jiray libaaxyada bariga Afrika.